بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمانتين وإن سلام يا دلي دبد ملك استاجوكتان سلام كدب سال سعوتين وآيادة وحن حوق ساريي ورركا دورشوينكا بنتلان يكونفور قلبي خاصة بنتلان بعد حوق ساريي عاو حربا إنا كهالله وإذن لو داغو واحد جري دونا دور كبرية سو سعودة وعاو كبلابتا برنامج تحانة oo aan kaga hadli doono 60 xildhibaan ee uu ka koobnaa golaha wakiilada Puntland ee beelaha hanaanka beeraha loo qaybiyay 60 ka ayaa helay arintaas aan rabaa inaan ka hadlo beel walba maxaan ku dhahdaa inta xubnood ay leedahay iyo cidda u soo xulatay xubnaha heshiiska lagu yahay iyo xubnaha khilaafku ka taagan yahay ee tahay inay kala saaraan guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada caawa diiradda waxaan ku saarayaa 9 xildhibaan ee beesha warsangeli oo waxa weeye runtii aad la isugu haysto kuwaasaan ka hadlayaa dadka helay kuraasta la isku haysto kuwa ilaa iyo hadda banaanka yaala saxiixiyada la kala haysto aad baan arrinta caawa maartay u karkarinaynaa haddii aan ka dhigo waa xog la hubo weeye waxaan halka ka sheegayo maaha nin jeclaysi iyo maxaan ku dhahdaa waxaas toona shaqo kuma leh sidoo kale habeen dambe waxaan ka hadli doonaa xildhibaanada beelaha dishiishe oo Axmed Harti ah Ali Jibrahim oo reer bari ah oo majeerteena iyo Ugaar Saleebaan Ali Saleebaan intaasaan ka hadli doonaa haddii ilaahay ka dhigo dhowrka bilood ba habeen dambe ka hadli doonaa habeenka ku xigana waxaan ka hadli doonaa saddexda Maxamuud Saleebaan 11koodii iyo qaabka u kala qaateen marka waxa weeye raali iga ahaada dad badan baa waxa laga yaabaa beelaha aan magac dhabayo inaysan jeclaysan waa sax weeye beel waxa la yiri findicil maxalaal ba shiikhow nin baa weydiiyay shiikhow maxalaal ba maxaraan ba sheeg saxun ba buu yiri qabyaaladu maxalaal ba sheegada xun yeelkadeeda de baarlamaankii iyaga saa ku qaybsaday qabiil 60 xildhibaan ku qaybsadeen qabiil iyagu ka xishoon waayeen de aanoo shiina kama xishoon karo ilaahay baa ilaahay halkaas ka sheegaya qaab kalaan idin ku dhigo garan mayo haddaan gobolka sanaa goran lahaa wixii arda weeye marka qaabka u dhigaya degma jirta laba xildhibaan laga soo dooranayo dadku marka bacdama qabiilada loo qaybsaday jifi in loo taabto weeye haygu culaadinina dadkaasi iyaga waxooda ku qaracsan oo saa u qaybsaday oo sida isugu baacsanayo maxaan ku raahday ugu baratamaya beesha warsangeli 9 xildhibaan bay leedahay 9 xildhibaan beesha warsangeli wuxuu kala qaataa 6 waxa qaata Cumar saddexna waxa qaata Dubeys saddexda Dubeys kan ku horeynayna cidda kala heshay kuwa la isku haysto iyo kuwa maxaan ku raahdaa banaanka yaala Dubeys wuxuu ku amaanay yahay beesha Dubeys oo degta inta badan gobolka Highland wuxuu ku amaanay yihiin inay kuraasta si fiican u qaybsadaan oo iyaga qofka mar doortaan aysan mar labaad dooran oo kursigu uu noqdo meerto jifo walba ay mar maartay darka tagto intaas aad u amaanan yihiin halka Cumarka waxa laga yaabaa nin kamida inuu iska dhaafino jifo wax loo qaybsaday xildhibaankii 98 la geeyay qaarkood maalin dhowtaa la bedelay 17 sano iyagoo fadhiya hadda waxa kamida qaar 18 sano fadhiyay marka saddexdii xildhibaan oo Dubeys ayaan daro waxa ah nasiib daro oo iska tartan saddexda waa la isku haystaa saddexda khilaaf baa ka taagan waxaan ku horeynayaa kursiga koowaad oo sanadka la siiyay beesha Ismaan Waarihan kursigaas waxa isku haysta adeer si sheer gareeya waa xilli dambe waa ogahay dadku waa yaryahay laakiin waa ku qanacsanahay barkay saaxiib ciyaaran ana xilliga dambe soo galay labadii habeenimo ay tahay 12 ay tahay Soomaaliya labadiiba u tahay yeelkadeedu wuxuu mar hadii wax la duubayo uu yahay bari way daawan doonaan hadii la ka dhigo marka beesha Ismaan Waarihan kursiga waxa isku haysta Cabdi Jamaal Usmaan Maxamed oo horay Puntland uga soo noqday wasiir ku xigeenka amniga iyo wasiirka xanaanada xoolaha ee dawladda tan maxaan ku xukuumadda maxaan ku raadayay madaxweyne Cabduul Maxamed Kaas oo hadda laakiin xilka laga qaadan joogin Cabdi Jamaal wuxuu haystaa saxiixa Suudaanka guud ee beesha Dubeys Suudaan Maxamed Suudaan Cabdullaahi Cartan buu haystaa sidoo kale wuxuu haystaa jiif caaqilka beesha Ismaan Waarihan oo lagu magacaabo Sharmaake Hilamin magaca Hilamin baa lagu magacaabo ninkaasi labadaas saxiix buu haystaa waxa ku haysta marka oo ay ku tartamayaan kursigaas waa kursi khilaaf weyn ka taagan yahay Yuusuf Saciid Madaxay
oo horey u soo noqday gudoomiyihii ugu horeeyay ee baarlamaanka Puntland sidoo kale Yuusuf Siciid Madaxay wuxuu soo noqday xilligii kacaanka safiirkii Soomaaliya u fadhiyay wadanka Sweden ninkaas wuxuu haystaa Yuusuf Siciid Madaxay oo professor wuxuu haystaa saxiixa nabadoon Axmed Siciid Madaxay laakiin saxiixa Suudaanka guud ee Dubeys ma haysto kursigaas marka waxay u badan tahay boqolkiiba 99 in guddiga khilaafaadka la isla gaaro kursiga aad baa loogu laalamay aad baa maxaa ku raadayay loo kala aragti duwan yahay marka boqolkiiba 99 waxay u badan tahay in la isla tago hadaan maxaa ku raadayay sulux kale ilaahay u bixin guddiga khilaafaadka oo iyagu ay kala saaraan kursiga labaad beesha Dubeys waxa ku baratamaya Maxamuud Axmed Xisi oo ka soo jeeda beesha reer Maxamed ninkaasi wuxuu haystaa saxiixa guud saxiixa Suudaanka guud ee beesha Dubeys Suudaan Maxamed Cabdullahi Artan sidoo kale waxa kula tartamaya kursigaas Siciid Cismaan Majakis oo loo yaqaan Siciid Fiisigis oo taqaanin oo maamula ka ah dugsiga sare ee magaalada Boosaaso Siciid Fiisigis wuxuu ka soo jeedaa beesha Xaniif marka isagu saxiixa Suudaanka ma haysto laakiinse beesha Xaniif waxay ku doodaysaa inaysan 20 sano Puntland jirtay aysan marna xildhibaan helin marna wasiir helin bacdama Dubeys ku xooda meertay hayna ay maanta iyagu xaq u leeyihiin doodooda oo dood adag ah u maleynmayo kursigaas inuu gaari doono guddiga khilaafaadka bacdama saxiix weyn oo halka maartay lala ayaansado Siciid Fiisigis oo macalinkayga ah aanu haysan marka kursiga saddexaad baan u gudbeynaa kursiga saddexaad waxa la siiyay beesha Isxaaq Cumar baa Dubeysiyay meerta ku heshay waxa ku loolamaya labada nin oo kala ah Cabdirasaaq Maxamed Saalax Cawaale ninkaas wuxuu haystaa ninkaas beesha dooratay markii la yiri reer Isxaaq Cumar oo kursiga ininka maanta leh reer Isxaaq Cumar guddi bay saarsadeen guddigoodii ninkaas u doortay sidoo kale caaqilkii guud ee jifida Isxaaq Cumar wuxuu u saxiixay warqadda maxaa ku raahday Cabdirasaaq Maxamed Saalax laakiin waxa la tartamaya nin lagu magacaabo Abshir Cabdi Mataan ninka beesho ma dooran caaqilkii jifidana saxiixiisa ma haysto laakiin waxa u saxiixay Suudaanka guud oo ah isagu de Suudaanka maartay awood leh hadalka ugu dameeyay kursigaana wuxuu u badan yahay in guddiga khilaafaadka uu tagi doono hadaan maxaa ku raahday farid kale u furin marka saddexdii kursi ee beesha Dubeys saddexdaba saasa la isugu haystaa kursiga khilaafka ugu baan ka taagan yahay waa kursiga u horeeya oo beesha Cismaan Waarihan waxa khilaafka keenayna waxa koow ka ah labada nin oo ku loolamaya waa waxay laba nin oo siyaasiyiin ruqcada ah ragga kale Fiisigis marka laga reebo dad saa loo yaqaano maaha laakiin labada nin wasiir buu soo noqday nina gudoomiye baarlamaanka Puntland ka soo noqday marka waa laba nin oo waxaan ku iri aad ba maartay xaaladoodu u culus tahay guddiga khilaafaadka bayna u badan tahay boqolkiiba 100 san qiyaasayo in kursigaas tago xildhibaanada Cumar baan u gudbinaa si shirgaray nacam ashtaanku ku yaal shirgaray wa xog weeye musharaxiinta xataa ka faa'iideysa musharaxiin badan oo hadda madaxweyne doonaya sida xildhibaanada la isugu haysto ma oga Dubeys yaa hel yaa waay yaa banaanka yaa la isku haystaa ma ogaba waa ka faa'iidi doonaan idinka laftigiinu doorashada musharaxiin madaxweyne la dooranaya musharaxiin baa taagantiin war madaxweyne in la tiisa waxa ka horeysa tii baarlamaanka baa belka taagantahay horta tan baarlamaanka naga dhigeysta oo warkeeda dhigdhigeeya marka ka bacdi madaxweynaha waynu gaari doonaa lixdii kursi Cumar baan u soo galeynaa beesha Bahma Jeerteen iyo wadaagtooda garaadada markaan ku horeeyo garaadada waxa weey kursigaas waa lagu tartamay 5 nin wax murana horta kama taagna kursigaas wax murana kama taagna nin baa la siiyay oo ku guuleystay tartan intuu u galay Suudaanku u saxiixay ninka waxa lagu magacaabaa Cabdirashiid Yuusuf Jibriil madaxtooyada Puntland buu ka tirsan yahay waa agaasimaha warfaafinta maxaa ku dhahday madaxtooyada Puntland kursigaas marka waa lagu tartamay 17 xubnood baa loo saaray tartan baa la qabtay 5 nin baa ku baratamay ninkaas ku guuleystay 9 cod buu helay sida xogta ku hayo waxa kursigaas hadda fadhiya gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi kursiga waa quudareeyay wuu doonay laakiin waxaan xogta ku helay inuu isagu rabay in kursiga aan doorasho la gelin sidii hore loogu saxiixi jiray isagoo 17 sano meesha soo fadhiyay in loo saxiixo oo uu noqdo wax caaqilka ay Suudaanka ku kooban laakiin beeshu waa diiday waxa tirtartan baa loo geliyaa
axmed marka wuxuu yiri anuu nin weyn baan hay tartan iyo bakhtiyaanisi ma geli karo tartankii waa ka tanaasulay kursiga weli isaga xildhibaana laakiin booska hadda waxa loo doortay oo wax muran kursiga kama taagna cabdirashiid yuusuf jibriil booska labaad beesha gaashaanbuur waxa booskaas loo doortay cabdiraxmaan cali jibriil xildhibaankaas wax muran kama taagna isagana beeshu waa shirtay sababa jira aawadood oo u gaar xildhibaanka wixii go'aansatay in loo daayo oo aan lagula tartamin waa xildhibaankii 5 sano la soo dhaafayna ahaa saas darteed lagulama tartamin wax muran kama taagna xildhibaankaasina banaankiisa ku yaala beesha reer saalax kursiga saddexaad cumar beesha reer saalax laba nin baa ku tartamaya nin waxa la yiraahdaa cabdiraxmaan dhoore ninna waxa lagu magacaabaa shirdoon axmed warsame shirdoon axmed warsame wuxuu ka tirsan yahay wasaaradda waxbarashada puntland waa agaasimo waaxeed wasaaradda ka tirsan tacliinta sare inuu qaabilsan yahay ayaan filayaa shirdoon wuxuu haystaa caaqilka jilibkiisa oo reer idris la dhaho oo lagu magacaabo casoowe maxamed guuleed buu haystaa caaqilka kaliya haystaa laakiin cabdiraxmaan dhoore wuxuu haystaa garaadka guud ee reer saalax garaad cabdullaahi alciid oo awada garanaysaan oo ah afayeenka isimada puntland sidoo kale wuxuu haystaa caaqilka guud ee beesha reer saalax caaqil sugulle maxamed qoobi sida aan xogta ku hayo oo aan saadaalinayo 100% kursigaasi waxay u badan tahay inuu tago guddiga khilaafaadka haddaan shirdoon tanaasulin una malayn maysaan xogta ku hayo inuu tanaasulayo cabdiraxmaan dhoore aad baa maxaan ku dhahdaa beeshu u wada taageersan tahay laakiin dad baa su'aal geliyey maxaan ku dhahdaa daacadnimadiisa puntland iyagoo ku eedeynaya inuu somaliland hadda kahor xil ka raadsaday oo xildhibaan uu uga tartamay intaasaa maaragtay nabar looga dhigaya laakiin waxaa xusid mudan saxiixii garaadka saxiixiisu nabadoonka intaba inuu isagu haysto kursiga afraad beesha cumar warsangeli waxa helay halka ayaan ku khaldamin warlaba cumar maaha laakiin waa warsangeli waa oogo weeye waa oogo iga xanaaqin warlaba iga raali ahaada laakiin de waa deegaan cumar halka waa isku deegaan waa iyagaa xisaabiya laakiin warlabe waa oogo waxa weeye waa rag culus weeye iga raali ahaada halka xoogaa waa galay hobseedka waxay la tahay inaan hadhow dacwad badan lay qabsanayn mar haddaan gadaal ka saxay warlabe marka oo warsangeliya maxamuud harti ah warlabe kursigooda waxa isku haysta kursigaasna waxay u badan tahay 100% muran aad u weyn bahreeyay guddiga ansixinta inuu tago kursiga waxa isku haysta ismaaciil sheekh saalax oo haysta ismaaciil sheekh saalax waa nin mareykanka degan oo mareykanka ka yimid ganacsade ah wadankana ganacsi fiican ku leh ismaaciil sheekh saalax wuxuu haystaa si sheegareeyay reeyal wuxuu haystaa saxiixa islaamka warlabo islaam bay leeyihiin macna ism ah islaan xuseen cabdisalaam buu haystaa sidoo kale wuxuu haystaa nabadoon cumar aw saciid nabadoon casoowe iyo nabadoon bashiir cali buu haystaa waxa la loolamaya nin siyaasiya oo puntland isagana aad looga yaqaano ninka waxa la yiraahdaa cali axmed dhahar ninkaas waxa uu hadda yahay xogayaha golaha wakiilada puntland waa xildhibaan buu ka dhigan yahay laakiin cod ma leh waa xogayaha wuxuu ka dhigan yahay oo kale agaasimaha guud ee baarlamaanka puntland buu ka dhigan yahay muddo badan aqalka baarlamaanka uu shaqeynayay galaangal badan halka waa ku leeyahay ninkaas wuxuu haystaa saxiixa caaqilka guud oo warlabe oo lagu magacaabo caaqil cabdiqaadir maxamed muuse marka kursigaas waxay u badan tahay saan qiyaasayo xogta ku hayo saadaalinayo 100% in guddiga ansixinta iyo maxaa ku raadayay xalinta khilaafaadka golaha wakiilada isla tagaan bihidoor kursiga shanaad oo beesha cumar baan u galeynaa warsageli waa bihidoor kursiga kan waxa ku loolamaya horta kursiga warlabe ninkii fadhiyay hore u fadhiyay gudoomiye baarlamaan buu mar soo noqday cismaan dalmar baa la dhahaa isagu tartanka kuma jiro saasa maartay uu u banaanaaday oo labada nin ay fursad ay ku loolamaan ay u heleen kursiga shanaad ee beesha cumar warsangeli waxa ku loolamaya cabdixakiim dhooba daareed oo hadda kursiga fadhiya laba xilina kursiga soo fadhiyay markii saddexaadna raba inay beesha u doorato sidoo kale waxa kula tartamaysa
Zainab Ismaaciil Timbi waxa la ii sheegay bihii door kursiga inay ku kala qaybsantay maxaan ku rahdaayay ay aad ugu kala qaybsan tahay marka xildhibaan Cabdixakiin Dhoobe Daareed waxa la ii sheegay inuu taageero fiican reerka ku haysto laakiin ciladu ay tahay maadaama la yiri dumarka qoondaha la siiyo warsangeli waxa la yiri sagaal rag ah oo wada qoor oo halka maraysa laga yeelmayaa la yiri marka Dhoobe Daareed sidaan filayo guddiga khilaafaadka la isla tagayaa waxayna u badan tahay gabadhaas maaragtay gabarnimo inay ku jiido taageerada xagga beesha isaga ku sitaaliyay laakiin gabarnimo ku jiidaysa waa saan xogta ku hayo guddiga xalli ansixinta iyo xallinta khilaafaadka marka la isla tago dhowr nin miisaan culus weeye hodana waa maxaa Zainab Timbi qof NGO iyo ka shaqeyso libaaxada weeye iyada laftigeedu iyo moodin inaan maaragtay waxa weeye isaga gaar u amaanayo labaduba waa dadiga gadan oo aan amaanayo kursiga lixaad ee beesha Cumar waxa le aadan Saciid kursiga kan khilaaf baa ka jira khilaafka ka jira ma buurna kursiga kan khilaafka ka jira ma buurna kursigaas waxa u tartamay oo ku loolamaya nin la yiraahdo Maxamed Caydiid Jaamac Dibad waa gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland hadda yahay waa nin ganacsiga oo aad loo yaqaano iyo gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya wuxuu haystaa saxiixa Suudaanka guud ee aadan Saciid Suldaan Maxamed Suldaan Xuseen Suudaanka nabadda oo ah oo dhaxlay aabihii ka dhaxlay Suudaankii maalintii dhooto Ilaahay waxa tabar lagu dilay waxa weeye wiilku dhalay oo maxaan ku rahdaa lagu caan shubay oo Suudaanka guud aadan Saciid saxiixiisu haystaa sidoo kale wuxuu haystaa jiif caaqilka aadan Saciid buu haystaa caaqil Maxamuud Cabdalle Dabshid wuxuu kaloo haystaa nabadoon Maxamuud Cabdalle Ciise iyo nabadoon Jaamac Maxamuud Maxamed iyo nabadoon Xuseen Xasan Faarax baa wada marka waxa la loolamaya nin lagu magacaabo Axmed Cabdi Jaamac Kuluc ninkaas wuxuu haystaa ugaaskii beesha aadan Saciid oo geeriyooday Ilaahay uu naxariisto wiilkiisii oo dhaxal suuga ah weli si aan uga caanshubin ninkaas ka taageersan reerka marka kursiga khilaafkiisu ma buurna mana filayo inuu gaari doono guddiga ansixinta iyo khilaafaadka laakiin wuxuu gaari doonaa oo khilaafkiisu sii cuslaan doonaa marka Suudaanka guud ee warsangeli uu maaragtay saxiix siiyo Axmed Cabdi Jaamac Kuluc oo uu saxiixi waayo Maxamed Caydiid marka khilaafkaasi meel xun uu gaaraya guddiga ansixinta iyo khilaafaadkana waa lama huraan bay noqonaysaa sagaalka xubnoodu beesha warsangeli saas weeye waxa kale oo xogta inuu ku daraya sagaalka afar kamid ugu yaraan gudoomiyaha baarlamaanka u sharaxan tahay warsangeli meelka la soo sharaxo marba dheer madaxweynaha doonaynayo leelkaas ka faa'iiday gudoomiyahooda intay ka tageen baa madaxweynaha waayeen leelkaas oo meel gudoomiyenimada u maro waayay baa kursiga dhexda iskaga laabay marka way aragnimada ka heleen hadda gudoomiyahooda waa iimaansadeen iyagu un baa isku qabsaday cid kalena uma tagto marka gudoomiyaha waxa u sharaxan inta nin oo u sharaxan gudoomiyaha baarlamaanka baa idin sheegaya waxa u sharaxan horta Cabdi Jamaal Ismaan Maxamed oo ah Cabdi Jamaal waa garanaysaa wasiirka hore xanaanada xoolaha sidoo kale wasiir ku-xigeenka amniga soo noqday ninkaas hadduu helo xildhibaannimada waa musharax gudoomiye sidoo kale ninka la tartamaya oo Yuusuf Saciid Madaxay oo hadda koor gudoomiyaha baarlamaanka soo noqday ninkaasina hadduu helo isagana waa musharax labada kii soo baxaaba waa musharax gudoomiye baarlamaan sidoo kale Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Dubays labada mid baa iska sharaxaya hadba kii soo baxa Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo baham jeerteena ninkaasina waa musharax waa la hubaa waa agaasime dhaqaale waxa la yiraahdo waxbuu ka hayaa aad buu u jeeburan yahay baa la yiri dawladana aad buu ugu maaragtay waa ka tirsan yahay ninkaasi waa musharax isagana waxa kaloo la saadaalinayaa Zainab Timbi iyo Cabdixakiin Dhoobe Daareed hadduu soo baxo isagana waa musharax laba jeer oo hore buu gudoomiyaha baarlamaanka u tartamay marna Axmed Cali Xaashi baa ka adkaaday marna waxa ka adkaaday Saciid Xasan Shire marka waxay u badan tahay Cabdixakiin oo la hubaa hadduu xildhibaannimada helo oo Zainab ka adkaado inuu ka adkaanayo u malaynmayo gabarnimada ku jiiraysaa ninkaasina musharax uu noqonaya sidoo kale waxa musharaxa hadduu soo baxo Maxamed Caydiid gudoomiyaha rugta ganacsiga ninkaasina waa musharax hadduu isagu helo marka waxaan haynaa afar baa warsangeli iska sharaxaya
haddii Zainab team B ay soo baxdo saddex baa musharaxiintu noqonaysaa sangeli booskaas ilaahay u barakeeyay dhulbaantay ilaahay madaxweyne ku xidhan u barakeeyay maxamuud Suleymaanna ilaahay kursiga madaxweynaha buu waxa weeye wuxuu uga dhigay dadkii kale ka jeediyay iyagu ku soo jeeday marka habeen dambe haddii ilaahay ka dhigo doorashadu meel xasaasiya maraysaa dad badan oo in ka mid ah madaxweynaha unba u dhigtaaysan madaxweynaha inaa u dhigtaagtaa waxa ka horeysa in horta xildhibaan la soo saaro sanadka khilaaf badan baa jira hadda Warsangeli baa ka sheekeeyay waxa la hubo laba nin baa banaanka yaala inta kale waa la isku haystaa khilaafku heer kasta ha ahaado ninka gaashaanbuureed oo Cabdiraxmaan Cali Jibriil iyo ninka Abaha Majeerteen iyo bahwadaagteeda ku soo socda oo ah Cabdirashiid Yuusuf Jibriil labada nin baa la hubaa oo aan khilaaf ka jirin todobada kale khilaaf baa ka jira waa la isku haystaa ama khilaafku mid adag ka ahaado ama mid maxaan ku dhahdaayay aan isdhihi karo waa fudud yahay oo xataa guddiga xalinta khilaafaadka hadduu gaaro inay xaliyaan wax badan ku qaadan mayso kala saaraan marka khilaafku badan yahay marka inaa madaxweyne horta la gaaro doorashadii waxa ka horeysa in baarlamaanka lagu soo kala adkaado oo baarlamaanka dadkii maxaan ku dhahay beelaa u matali lahaa la helo oo la soo xulo si sheer garay nacal ashiidaan ku yahay shirku ugu yartay bahala ayga dhinta bahasha si sheer garay nacal ashiidaan ku yahay wararka Puntland sasa inuu ku soo tabinaya halkaas madaxweynaha doorashada gudoomiyaha baarlamaanka tan xildhibaanada dibutaatiyaasha maxaan ku dhahay madaxweyne ku xigeenka ilaahay wax badan halkaas ka soconaya sharci shul ku reebay waa u baaga mudday doorashada waa u baaga mudday bankigan ka shaqayn jiray fasax bil fasaxan ka qaatay waa u baaga mudday waxaan bisha dadkayga oo adeegaya dadka ugu xiran baa u adeegaya koonfur galbeed sidaa ka daalin saas ugu soo tabinaya marka habeen dambe waxaan idiin soo tabinaya sida aan hadda u tabinayay si lamida dishiisho Axmed Harti saddexdooda xildhibaan cidda siiyeen xubnaha haddii murajiro ciddu ku jiro saxiixyada kala haystaan sidoo kale علي سليمان صدح له بري وإني سو تبيني خلاف بدنا كجرا يجنا ولي عند برنامج علي سليمان كبير مجلسته لكن بلدادين ولا سوية سيدو كله علي جبراهيل هبين دبي ولبضوا الحجبان ماشي كلا جيين وكهل دونا يوقع سليمان هبين دبي أنت أصلا كهل دونا هبين كوسي حجنا وحكهل دونا هدي لهنا كنيجو حموس سليمان كوبي توم بسنت كهلن باليري يودي وحوضه حلوان هو أم بحنا نما كعمل حينا فردية مركا كوبي تومكا عثمان محمود وحلا يقول كوسي ما هي لبدي كلا برنامج يالي مركا وربحين تيجو كولوم بحلا إن صوص صينية على محاكر هذا عيسى محمد ولي مجديها جرسير الشيء عمر محمودنا هل ما ها أنت كلا ولي وحن مقلي وحباج جرسير قول حباج جرا مركا أدوه هبين سبتح هبين دم وربري هبين كحية بان مارت محمود سلمان هنا هبين كأفرادنا سعيد حتى دراويشتي على البهانتي أنا قلنا ومشارع 20 كروبين نيك شينا عليها أو إذن له وررك دورشوي كبتران هكا كلا السعودة قفكي ربع إنه وررك يهرو هل ركنتو مقاحيها ركنتو حالي وحكى لي أسد عثمان ديانو dad badan aan si gaar ah u arkay si maartay inaan ninka maartay duulaan gaar ku ahay ama dad ay isu adeegsadeen oo kale aanu oday baan ahay cid leeyma adeegsado dad badan ay la soo hadlay arrinta ka cabanaya marka waxaan idin sheegayaa anu musharaxiinta waa dul istaagaya mid walba hadii aan ka dhigo musharax walba saan asad maartay halka u qaadaan dhigay ya dhinac walba durbiga ka eegay musharax walba saasaan ugu eegaya musharaxiin badan oo waxaan ku raadayay hadaa saa u eegto durbiin hadaa saa u eegto gabigooda waxaan ku raadayay bulaacad abaajira marka waa eegi doonaa hadii aan ka dhigo asad arintaas kuma koobnaan doonto waxaan u maleynayaa inuu farxi doono marka musharaxiinta kalena saa u gagadiyo oran doono warniku kaliya yimid jeedi hadii aan ka dhigo taana waa in ballan qaadaya hadaa taas sameyn waayo waa full apology baan siinaya markay hal qof hadaan dadka u sinaanin oo iyagoo dhan maxaan ku raadayay eegay hal qof waxa uga xabsantaa oo qadaro weey hal qof tuka cambaar lama hamoqti dadku waa dad ehla meesha wada jooga marka insha Allah saasa noo balana wararka halka kala socda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سي شكرا او يوتيوب كي سبسكرايب لو بو نعم لا شي داك يا قفكي ربا انو وركاي هنا هسير كنتو ركوكم محويه فيسبوك انا فلو صورانيسا يوتيوب كان سبسكرايب اورانيسا يا واتساب كم جعل لي صور اهلك ام بارداي مقاحيك راي ما عرفت دتي محويه وين السلامي سغال بورسن قال ليهي بانت 700 بو ليهي ديجي 3 بو ليهي واحمد هرتيه ليل كسي او maxaan ku raad darbi daaroodo iyagu meel sare jooga 3 bay leeyihiin aw tabla labu leeyahay wixii kale calool ma jirteen ka day halkaas kale wasalaam calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh